Bismillaahi Raxmaani Raxiim daawadayaal kulanti wanaagsan meel kasta oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada mar kale akhbaaraadka caalamka ugu dambeeyay oo kala socotaan warbaahinta Caalam Media 24 qodobka barnaamijkeena ku soo qaadan doona daawadayaal waxa uu noqon doonaa madaxweynaha dowladda Ruushka oo isku xilqaamaya sidii uu ku dardargelin lahaa dib u habeyn lagu sameeyo ciidamada caloosha u shaqaystayaasha waddanka Ruushka dadaalada ugu dambeeyay madaxweynaha Ruushka la tilmaamay inuu qaadayo si uu dib ugu habeeyo ciidamada caloosha u shaqaystayaasha ee ka barbar dagaalamaya ciidamada waddanka Ruushka daawadayaal qodobkaas ayaan barnaamijkeena ku maqli doontaan mar kale kusoo dhawaada warbaahinta Caalam Media oo xilli kasta aad kala socon kartaan wararkii ugu dambeeyay caalamka oo xaqiiqada ku saleysan daawada fiidiyoga noo share garee YouTube-kana subscribe noo saar si bulsho badan aan u gaarno waan ku mahadsantihiin inta aad haddana soo gaarsiiseen sida ay tilmaamayaan wararka ka imaanaya wadamada Ukraine iyo Ruushka madaxweynaha dowladdaasi Ruushka Vladimir Putin ayaa isku xilqaamaya si dib u habeyn dhammaystiran ugu sameyn lahaa ciidamada caloosha shaqaystayaasha ee Wagner ee ka barbar dagaalama ciidamadiisa madaxweynaha ayaa la sheegay in saacadii la soo dhaafay uu kulamo kala duwan la qaadanayay sarkaal hore oo howlgaba waddankaas Ruushka u dhashay kana mid ah asaasayaashii kooxda Wagner iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga kaas oo la aaminsan yahay inuu qayb weyn ku leeyahay howlgallada kooxda Wagner ay dunida ka sameynayso waqtiyadii ugu dambeeyay ayaana wasiir ku-xigeenku waxa uu ku howlanaa dadaalada la xiriira dib u habeynta kooxdaas ee wadamada galbeedka iyo bariga Afrika madaxweynaha ayaa la sheegay inuu kulan gaar ah uu la qaatay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee waddankaasi Ruushka Yonisberg Yevgraf iyo taliyihii hore ee kooxdaasi Wagner Andrei Torshov kuwaas oo la tilmaamay inay qayb weyn ka qaadanayaan dib u habeynta uu madaxweynaha waddankaasi Ruushka damacsan yahay lagu sameeyo kooxda Wagner xilli dagaalka waddanka Ruushka uu ka wada waddanka Ukraine ku sii dhow yahay inuu laba sano jirsado ayaa haddana maalmihii la soo dhaafay waxaa Ukraine ka soo baxay warar la xiriira in la helay sawirro muujinaya in kooxda Wagner oo la aaminsan inay kala furfuran doonto dagaalka dib ay ugu soo laabteen dhinaca bari ee waddanka Ukraine wararka ku dhow madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegaya in madaxweynuhu uu kulankaasi la qaatay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyihii hore kooxdaasi Wagner uu kala hadlay damaanadqaad dhanka arrimaha bulshada oo la siin doono dagaalamayaasha ku soo biira kooxdaas si ay u dagaalamaan sida warbixinta lagu sheegay waddanka aabayaashood dad badan ayaan u fasiray hadalkaasi inuu ula jeedo dadka sida tabarucaadda ugu dagaalama waddanka Ruushka ee ka soo jeeda gobollada ay qabsadeen ee waddanka Ukraine iyo sidoo kale waddanka Ruushka wadahadalka madaxweynuhu uu la yeeshay Andrei Torshov hogaamiyihii hore ee kooxda Wagner oo la sheegay inuu hadda yahay hogaamiye howlgaba ayaa wararku xusayaan inay la xiriirto sidii uu ku diyaarin lahaa cutubyo ka barbar dagaalama ciidamada waddanka Ruushka kuwaas oo ciidamo caloosha shaqaystayaal damaanadda bulsho ee la siinayo ayaa lagu tilmaamay inay ka mid tahay kuwa aan u dhalan waddanka Ruushka inay heli doonaan dhalashada waddanka Ruushka sidoo kale inay heli doonaan in waddankaasi ay si amni ugu noolaadaan iyo sidoo kale dhaqaale tiro badan oo dowladda Ruushka ay ku bixin doonto dagaalyahanada ku soo biira kooxdaas ka barbar dagaalamaysa ciidamada Ruushka wakaaladda wararka Ruushka ayaa Jimcaha laga soo xigtay in Andrei Torshov oo ah korneyl howlgaba uu durba la shaqeynayay wasaaradda gaashaandhigga sida ay ka soo xigatay afhayeenka Kremlin-ka Dmitry Peskov taliyahan hore oo howlgabka lagu sheegay Torshov ayaa sida ay midowga Yurub cunaqabateyn ay ku soo rogeen hore loogu sheegay waxaa lagu tilmaamay inuu ka mid yahay xubnaha asaasayaasha iyo madaxda fulinta kooxda Wagner oo ahaa waxaana dad badan ay aaminsanaayeen inuu yahay nin aad u muhiim ah marka loo barbar dhigo ninkii hore ee taliyaha ka ahaa kooxdaasi Wagner ee geeriyooday Yevgeny Prigozhin kooxda caloosha shaqaystayaasha ee waddanka Ruushka Wagner ayaa waxay saameyn badan ku leeyihiin wadamo badan ay ka mid yihiin waddanka Syria Liibiya wadamada Mali iyo qaybo badan oo dunida ka mid ah oo salagyo ku leeyihiin qaybo ka mid ah galbeedka Afrika ayaa la sheegay in weli ay ka howlgalaan iyagoo fulinaya siyaasadda Kremlin-ka sheeganaya in la dagaalamayaan kooxaha islaamiyiinta ee wadamadaasi ku kacsan sidoo kale dagaalada xoogan ee Ruushka ka wada waddanka Ukraine ayay saameyn muuqata ku lahaayeen ka hor intaysan gadood ka bilaabin gudaha waddanka Ruushka xerihii dagaalka ee lagu oogay Ukraine dhexdeedana aysan ka bixin maalmo ka hor ayaa sidoo kale waxaa soo baxay in la arkay kooxdaasi Wagner ciidamo ka tirsan oo ku soo laabtay safka dagaalka ee Ukraine gudaheeda daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraynaa qodobkan kaga hadlaynay madaxweynaha Ruushka oo dib u habeyn ku sameynaya kooxda Wagner intaan qodobkan la mid ah ku kulmayna waxaan kaga tegnaa sida ay nabadgelyo